waxaa dhawaan magaalada Qaahire ee dalka Masar soo gaaray wafdi ballaaran oo ka socda Soomaaliland kuwaas oo ka koobnaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Maxamed Biixi Yoonis iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo u qaybsamaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika mudane Fahmi Qaasim Maxamed haddaba wafdiga ka socday Soomaaliland ee booqashada ku yimid dalkani Masar ayaa habeenkii xalay waxay kulan ballaaran la yeesheen jaaliyada iyo ururka ardayda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Masar iyaduna hadalka qaadatay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan waxaana sheegtay in dalka Masar ku yimaadeen martiqaad rasmi ah oo ka heleen dawladda Masar waxaana intaas ku dartay Marwo Samsam ilaa hadda inay la kulmeen wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Masar waxaana hadaladeedii kamid ahaa waxaan aad baan idin wada salaamayaa runtii dhalinyarada iyo dadka quruxda badan ee Masar ugu nimideen Qaahire macaawi kula caweynayno runtii farxad weyn ayay noo tahay runtii waxaan ugu nimina way martiqaad ay noo soo direen dawladda Masar ballamay noo sameeyeen maanta ballankii ugu horeeyay galayo wasaaradda tacliim caali wasiirka aanu la kulanay marka danaha uun Soomaaliland iyo Masar ayaanu ka wada hadlaynay iyo sidaynu xiriir u lahaan jirnay waayo Masar isku xisbina waxaynu lahaan jirnay taariikh fog baynu lahayn cilaaqaad baynu lahayn taariikh dheer leh oo haddaad aragteen reer miyigeenu imaka ilaa imakaas ay ku heesaan iyagoo miyiga iska jooga Jamaal Cabdinaasir ninkii la jihaaday loo jabi ugu dambeyntii waa hadalka la wareegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Maxamed Biixi Yoonis waxaanu sheegay in wadahadaladii ay kula jireen Soomaaliya ay ku socdaan gaabis isagoo sheegay in dawladda Soomaaliya wadahadalada ka cagajiidayso waxaanu yiri gaar baynu u taagnayn dhibaato badan baa walaaladeena jaarka haysatay intii hore maynu haysan cid aynu la hadalno waxa imika dawladdeenu goosatay inaynu wadahadalo la bilowno sida noogu muuqato wadahadaladii waa bari slow waxaad moodaa inay walaaladeen cagta jiidayaan oo wali sidaa ula socotaan dhibaato badan ka taagan tahay hase yeeshee ma sugi karo waqti badan oo naga lumana diyaar uma nihin waxaanu ku dadaalaynaa ama dawladana inay ha noqoto ama dawladaha badan aynu u tagnay ha ka mid noqoto aanu khaasatan maartay dalka Turkiga u sheegnay in aanu jecelahay in walaalada iyo si cad loogu sheego Soomaaliland goonisu taageeda in aan laga noqonayn aan lahayn